kusoo dhawaada Shaaro Films haddii aad ku cusub tahay fadlan YouTube subscribe saar siina share gare si asxaabtaada kula arto waan ogaayna subscribe saarayso way Soomaali wad xaasnimatid maanta maxaan ka hadlaynaa maanta laga hadlayaa marka hore waxay joogtaa akhyaarta Shantida waa haweenkii iyo fanaankii xaafadda Shantida hadhowna kusoo dhawaada online Shaaro Films aad baan ugu dhawnaa saaxiib Shaaro Films maanta maxaynu ka hadlaynaa maanta waxaynu ka hadlaynaa fariiqa ka weeriyay showgeedii qabatay xalay ku qabatay yaryarayna magaalada Hargeysa hotel Karoon bahamiya show wuxuu ahaa halii yartus qabatay show inuu caadi ahayn kaad waa cabsi kuma daawatay show ay sidoo ah show aad fiican buu ahaa aad loo soo isku dibiriyay lagu soo shaqeeyay oo waxaan ku ri xidigaa geesku ay waxaan ku ri hawlgalkooda lahaayeen xidigaa geesku mid ka soo shaqeynayay sax fariiqa ka weerarayay sideen ognahay inuu kunahay qadrow waxay tiimiyeen bishan gudaheeda bilowgeedan bishan maanta dhowr tobanayaan intaaba marka xisbiisay waxay sugayeen oo la diyaarinayay la habeenayay showgeeda weyn kala ma ahayn sax absar ka war adiga ma xalay waxa si wacan bada wata filayo farxiyo kabeer aad u taageertaa aad u taageerwana daawadaa aad u taageereysheeda kamid ah garanaysa la showguna show aad u wacan buu ahaa lacag badan ku baxday oo aad u wanaagsan oo aad u qiimo badan buu ahaa waxa ku weydiiyay waxa la ciyaartooy ku dayatay si soo xirata timaha ninka magaciisa maxaa la yahay ninkaas ku dayatay si soo xirata nin si soo xirata ciyaartooyga ku dayatay sida tibtiisa u xiratay ee dhaqankiisa garanaysa mutasha ciyaartooy caanka oo kuna ciyaara naadi Talyaaniga oo la dhaho Beletoli oo xirtay sidii Beletoli oo xirtay marka waxay ku doorbideen soo xirata idoo inaanay nin la gareebay ay sida Beletoli ciyaartooy ay soo ekaysan wax laga xishooday dabadru maanta inaan wuxuu weeyaan waashino kale ahaatay haddana waxay noqotay qof dhaqankii iyo anshixii dhinac martay sana umeenu gogoyneen sana umeenu magnaadii waxaan ku sidaa fanaaniinta kale waxaan ku dhaqankooda lahaan lahayd laakiin maxay ku darsatay ku xumaatay in yaro dhaqan xumaa way ku darsatay in yaro dhaqan xumaa ay ku darsatay way aad ku kala haddii farxi ka weeray ay ku timaado guurka dalbato sidii leey qadrow watarad badan oo damco ku jira waa jiraan sida ragay la fadhiyo hadda saqayawan laakiin aniga marna ma damacayga ma ahaatee inaan farxi ka weeray أنا سوق عيسى بنتي مرة مرة كم يوم وايد دقن كذا أيام بنسكوس أيام سمتي لك المدة يعني من أولك ما قاعد قبل ما قاعد على العاد هاي ستة نك أي نك كان شو مرامي يقول ودي ستة كيف يدي سنة marka cad adiga dadka ka warsaasha su'aasha soo kordinaya anu hadii arrinkaas soo bandhigto way yeeli lahaa صح laakiin yaro aan dhaqankaas u garanaysayo waligeeda kale laakiin ka wantoogoyda ka tagaydo wax nadhaxay wax kasta oo diinta moogta صح diinta hadii garanaysa saan noqotay wax lagu qaban karo moogta ma aha moogta صح anigana saas ii bedelaysa hadaan marka anigu aan bedeli karayna bedelo waxiye la gurkeeda bedeliyo gurkeeda waa labadii laha oo dii waa isku gursan lahaa labadii gursan way asoo waxa ku jira waxa العاب badan bay ka qaadatay showgaas xal uga soo baxay Yusuf kulaas lacagta maadaama ay dadka la socday oo daawanayay show taageerashada lacag badan baa soo baxday ilaayo 10,000 10,000 qiyaasino ayaa uga soo baxday lacag badan qiimaha gabadha uga soo baxday warsta lacag qiimaha warsta koon way ashkuru hadda waxay sheegaysaa in xog ka hayso maaliyadda xalal ka soo xarootay maadaama la ogi reer geysanayeen dad nasaba dad soo dhaweynta ku fiican dad lacag haysta dad qabo marka adiga ashkuru han maxaad ku gaashay lacagta ay xalka meesha ku soo baxday qadrow show intaas oo la diyaarinayay oo waxaan ku ri hawlgalkiisa ay dhinacyada ka wadeen xidigaa geeska iyo fanaaniin kale badan waxay ka wadeen abwaano waxaan ku ri farxiin ka weernaay marti ah haydarkiisa tiimi markii ugu horeysayna ay ahayd
waxaan dhihi karnaa waa show laga soo shaqeeyey oo tacab badan la geliyey waxaan ku wari dhaqaale badan kalaas ku baxay waa run lacag dhashay laakiin wixii wax in badan tacab badan ku baxay weeyaan kulay qadro mardan qiyaasna wixii dhaqaale uga soo xaroodo farxiyo ka yar showgeeda waxaan dhihi karnaa adigu ilaa 15 ilaa 14 ilaa meelaha dhowr 10 inay soo baxaan waa macquul ayaa laga yaabaa warda ninkan uga xogaysan yahay ama iska taageeraa gabadha ninkan waa taageeraa oo waa ka helaa ninkan waa xiratana waa wixii marwuu dhahaa farxiyo ku yaraya waa abaan ninkan waa abaan lima abwaanmeedu ana bir kaftan ku darsado ninkan kan dacay fadhiya hada cabshuur jaamac ilmi soma si fiican oo ku magac dheer abaan shaacir وانا أقوان كم السنة سبب دياري سيسيني ما له أكيد ما له ها تقدروا كان يحكي له يمكن واحد ولا هي نفتنا ده حاجة دنيا إن كل ديارسين هنا إن عدة مودي بلا حاجة قشنا يمكن إنسان سليع عبد الرزاق ما دبي كذي ويا أنا يركض حكرا مين كان بدي حديث فريان وعبد الرزاق يوسف محمد waa leer cabdi jimiyo waa fanaan yar oo daayar oo kamsoon heeso badan ayaa wax badan og isagana wada socon doontaan shaam maadho ka daawan doontaa heesay intii go'day soo gaarnay muuqaalkan quruxda badan waxa duway cabdi xakiin aan siciid ade muuqaal cad oo sida leenaasi saacad buu noo duway aad mahadsanyahay waxaan leeyahay mar labaad haddii aad ku cusub tahay youtube subscribe saar sidina share garee si aad nala socoto dhawaana waxaa bilaabanaya kaftan badan oo cid walba lagu qali doono inta badan labadeeda garab asxaabta qadirow aan ka faa'iideysan intaan clip kan go'in waxaan insha Allah inaan joojin doonin oo aynan waxaan ku leeyahay aanan ka caajis doonin clipada noocan mar walba bulshada la wadaagto mar walba inaan dhaxaan soo kordhiyo nolosha hada jirin garanaysa ma walaha haato ama waxaan ku raaxaa haato ama fanaaniinta wixii qusaya ama wixii markaa jooga haato kuwan insha Allah wada naga daawana hadii la ka dhigo waxaan duuli doonaa karbash oo karbashna fanaaniinta aad kan soo weeyaan kasna aad baa mahadsantihiin bye